waxaa maanta xarunta maamulka gobolka Sool lagu daafuray ololaha 16aad ee talaalka xoolaha nool kaasoo ay hogaaminayso wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Sool. warayna waxa ololahaasi ka hadlay isduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Sool Dr. Cabdirashiid Maxamed Bootaan oo ka waramay deegaanada ay ka howlgalayaan guud ahaanba gobolka Sool. meelkan joognaa waa gobolka Sool xaruntiisii degmada Laascaanood ugu horeyntii mamka xubnaha gobolada maayirka degmada Boocame xogayaha gobolka Sool shaqaalaha kale iyo dhammaan batiyonka wasaaradda markore wada salaamay xasuusta salaanta islaamka bacda salaan maanta waxaa loo baxayaa campaignkii BBR-ka iyo CBB-ga xanuunka le susumka BBR baa loo yaqaan hadiya jeer marka xanuunka susumka ama halkan kaneecada looga yaqaano iyo furuqa idaha iyo riyaha labada xanuun waa la talaalayaa waxaa raacsan daaweyn 250 kun oo neef ah oo ari iyo riyo isugu jira 70 kun oo geel ah 5 kun oo lo ah iyagana waa la daaweynayaa dadweynaha ku dhaqan gobolka Sool iyo nawaaxigiisa siiba degmooyinka Caynaba Laascaanood Taleex Xudun Kalabayd waxaan ku boorinaynaa khatiirta way idin soo baxayaan way idin imanayaan daawooyin bay idin sidaan talaal bay idin sidaan waxaan ku boorinayaa inaad fadlakum aad xoolaha ka daweysataan kana talaalataan waayo dib bay nagu tahay annaga mar allaale marka tiyomku ay shaqadoodu dhamaato baarheermigu waxay noo keenaa xoolo dhaqto nool yimaadaan cabasho ay la wardiyeen leeyihiin xoolihiina looma talaalin nalama soo gaarin caynkan oo caynkan waxa weeyaan roobkan dalka wada gaarin anagu dalka wada gaari mayno iyo dadka wada gaari mayno laakiin intii awoodeeda waa 60 cisho 60 ka cisho tiimamkaas fariisan maayaan guryahoodii dantoodii caruurahoodii hawlahoodii idinka yimaadeen idinkana waxa la idinka doonayaa inaad si quman uga daawaysataan khatiirtana waxaa lagu balamayaa soo guurta badan baa jirta oo hayaana oo ka timi gobolada bariga siba xagga Puntland Somaliland qudheeda ergaab oo kale way soconaysaa mudug baa soconaysaa marka waxaan ku boorinaynaa idinka qudhiinu in dadka soo guurtada aad ka fadliyeeshaan kuwii hore meesha u deganaa wax qabadku isagu uu ku horeeyo dadkaas ilaa gambare ilaa meesha ilaa Caynaba oo ilaa hawdka ay ku taxan yihiin waxa weeyaan kulli waan ognay inaan hakranay haddana maanta hawshu deetii hore way ka culus tahay waayo 3 gobol oo soo guurtaa baa idin yimi abaalkana waa la gudaa waayo waxaan xasuustaa bariga loo guuray isaguna halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta ee gobolka Sool Ibrahim Jaamac Cabdi oo uga mahad celiyay wasaaradda xanaanada xoolaha dadaalka ay ugu jirta daryeel xoolaha nool waa campaignkii 16aad ee talaalka xoolaha nool ee gobolka Sool xoolo dhaqatada gobolka Sool inay ka faa'iideystaan talaalkaas baan ugu baaqayaa oo waqti talaalku dhamaaday ay tiimankii oo waqtigoodii ka dhamaaday ay la soo hadlaan barigii horeen ogaa taasi ay dhicin waxaan leeyahay ka faa'iideysta tiimanka xanaanada xoolaha talaalka idin soo baxay 60 casho ku eg waxaan idin ku baaqayaa inaad ka faa'iideystaan talaalka intii la gaarsiin karo kullayn cayiman weeye tiro weeye ololahan ayaa soconaya in muddo waxaan lagu daryeelayaa xoolaha nool ee guud ahaanba gobolka Sool waa Barkhad Cumar Axmed warbaahinta dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland Laascaanood.